qaarkood aysan kaga dardaar warin karin xaaladda cusub sababta xaalad cusub lagu soo furtay ummadihii marka jiil ka jiil joogay qabiilkii waa isaga dardaar wariyeen laakiin waalid soo qaxay oo dalkii soo dumay oo nooc walba oo waalid u yimid dhibaatooyinka ay ubadka ku dhacayaan marar badan waxaa muuqanaysa oo ilmaha xabsi ku jiran ay noo sheegeen kuwa aan mar walba la kulanana ay noo sheegeen waxay tahay inta badan waalidkii uma diyaarsana duruufihii dhibaatooyinkii waalidkii inta badan uma diyaarsano marka mid waxay tahay cusaybkaynu ku cusubnahay dalka marka nalala barbar dhigo madowga kale iyo muslimiinta kale iyo dadka kale la yidhahdo black asian minority ethnic oo 13% ay ku yihiin dalka hadda dhibaatadaas waxaa nala qaba muslimiinta sababtaa muslimiinta waddankan saan hore u sheegay 3% ka yihiin xabsigana waxay ugu jiraan 12% muslimiinta waxay ka yihiin 5% xabsigana waxay ku jiraan 15% madowgana dalkan waxay ka yihiin 3% xabsiga dadka ku jirana waa 12% waa afarlaad Soomaaliya muslimiin ah oo madow ah labadaba way ka qaaday marka sababtoo ah duruufahay ku timid way ka duwan yihiin duruufaha ay madowga kale iyo muslimiinta kale ku yimaadeen habqanka iyo qaxa sidan ballaaran aan anaga u nimid cid ku timid way kooban tahay Siiriyaanka nala wadaaga hadda marka anaga duruufahaas xeerinayna adeega ilaa hadda jaaliyadda ay samaysatay ma dadka waaweyn baa loo sameeyay mise ubadkan iyo challengeska iyo taxadiyaadka iyo dhibaatada haysataa loo sameeyay aniga qiimeyntayda 9 sano jaaliyadda la shaqaynayay adeega waaweyn ee jaaliyadda ay samaysatay waalidka iyo dadka qaangaarka ah loo sameeyay inta